بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داوديال waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka awoodda shanaad oo toddobaadka xilligan oo kale aad ka daawataan Dalsan TV anigu waa Awiis Xasan Maxamed toddobaadkan barnaamijka waxaa marti noogu ah madax ka gaartay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdillaahi Dani oo inta la socoto taariikhda siyaasaddiisa mar noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kale la soo noqday wasiirkii qorsheynta iyo iskaashiga xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud barnaamijku waxaan ku eegi doonaa موضوعية كلا دوان أو لحريرة سياسة الصومالية فخامة الرئيس فرحب بإيتها إن برنامجكي أود الشناطة مرتكو تهي سلو هذا ما سنتهي دلسن تي في أويس لبدي نبا هذا ما سنتي وياهي برنامج كان أود الشناط على بوحان كو عزونا مدحضة waxaan ku eegi doonaa arrimo dhowr ah oo la xiriira marxaladda siyaasadda ee dalka uu marayo qaybtan koowaad iyagoo faahfaahsan daawadayaashana waxay ku heli doonaan qaybaha dhexe ama dambe barnaamijkeenan waxaan rabaa inaan ku soo koobto jawaabtaada mudana madaxweyne waa jirtaa iyo ma jirto su'aalo kooban aan ku weydiin doono waxaan ugu horeysa mudane madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani ma jirtaa shirkii Muqdisho ka soconayay ee hadda dawladda ay sheegtay in uu ka socon waayay madaxda maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ma jirto ismariwaaga siyaasadda ee hadda arrimaha doorashooyinka ka taagan mudane waxaad u adeegsanaysaa inaad ku wareejiso focuskii ama diiradii culeysaadkii ka haystay Puntland ma jirtaa mise ma jirto ma jirto cidda tanaasulka laga waayay ee diidan in hore loo socdo waa Saciid Dani ma jirtaa ma jirto ma jirtaa in masiirka qaranka Soomaaliya uu u xaniban yahay maadaama Soomaalida ay ku qaybsadaan awoodda iyo dhammaan waxyaabaha ka dhaxeeya 4.5 hal beel maadaama adiga iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland isku raad ka soo jeedaan in qarankii Soomaaliya hal beel wax yaraan ma jirtaa mise ma jirto dimuqraadiyadda aad ka dhaqan gelin weysay Puntland waxaad ka raadinaysaa Muqdisho ma jirto Puntland dimuqraadiyad baa jirta haddana ka socota هذا ما سنت بدل مدحوينه قيبها كل برنامج كان وجود بيننا داوديال وبرنامج كود الشناط دلسن تي في aad kala socotaan waxa marti ugu ah madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Dani mudane madaxweyne qaybta koowaad barnaamijkeena waxaan ku bilaabanaynaa wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa uu warbaahinta u sheegay in shirkii Muqdisho muddada ka soconayay in uu ka socon waayay dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxaad dib u celisaa aniga daawadayaasheeda shirka aad isugu tagteen madaxda maamul goboleedyada iyo xukuumadda dhexe maxaa la isku mari waayay marka ugu horeyso waxaan ka xumahay horta wasiirku shirkana lama gelin waxa ka dhex socdana ma ogeyn laakiin wixii loo sheegay oo la faray ayuu sheegay dawladdu sida ay marar badan xaqiijisay oo ay ku soo qortay beejajkeeda iyo meelaha warbaahinteeda waxay sheegtay shirkani 3 maalmood socday inuu ahaa shir hordhac oo looga arrinsanayay sidii shirka looga hadlayo doorashooyinka loo qaban lahaa iyo ajandihiisa marka horta shirku shir hordhac buu ahaa oo hadda shirkii lamaba gaarin marka inuu fashilmay inuu sii socdo waxayba imaan lahayd marka la gaaro laakiin shirkii hordhac ahaa annaga waxaan qabnaa inuu weli noo socdo arrimihiisina aan u joogno weli waya shirkaasi muddada socdo hadalka wasiirka waan dhageysanay haddana qayb ahaan waa sharaxday horta maxaa la isku mari la'yahay faahfaahin naga sii runtii shirka hordhaca ahaa waxa uu muhiimadiisu ahaa in la isla garto ajandaha shirka iyo sida uu qabsoonayo hanaankiisa dabcan dowladda Puntland iyo Jubbaland iyo madax kaleeta waxay soo jeediyeen habka shirku uu furmaayo iyo hanaankiisa maadaama shirkan ujeedadiisu uu yahay in dalka lagu gaarsiiyo doorasho abuurta deganaan iyo xasilooni dalka Soomaaliya uu helo habka uu u furmaayo waxaan soo jeedinay inuu noqdo furitaanka hore hab ballaaran oo ay ka soo qayb galaan mujtamaca Soomaaliyeed qaybihiisa oo kooban oo aan aad u badnayn ay ka mid yihiin bulshada rayidka ah ay ka mid yihiin madaxda labada aqal ay ka mid yihiin madaxdii hore ee Soomaaliya ay ka mid yihiin bulshada caalamka shirkaasi habka furitaanka waa sidoo shirarka
noocan oo kaleeta horena loogu furi jiray haddana inay loo furo ay habboon tahay kaas oo ujeedadiisu uu yahay inuu abuuro jawi degan oo runtii dadku ku wada faraxsan yahay oo ku wada hadleen si loo galo muwaadiicda asalka u ah sidii doorasho u qabsoomi lahayd oo ajandahaas ruuxadiisa oo maalinta labaad loogu talagalay inay xubnaha dowladaha federaalka iyo dowladda federaalka iyo xubnaha dowladaha federaalka xubinta ka ah keligood ay shirka labaad galaan ajandahana iyagu ay markaas sida uu yahay uga hadlaan dabcan ajandahaas ruuxadiisu wuxuu ahaa meelaha khilaafku ka yimid ajandaha ugu muhiimsan oo dee si shir u qabsoomo waxaa ka mid ah doorashooyinka dalka 17 Sebtembar waxaa madaxda aan soo sheegay ay ku heshiiyeen in dalka loo jiheeyo doorasho dadban maadaama xilligii doorasho qof iyo codol lagu qaban lahaa ay la gaari waayey la islana qiray taas ayaa saldhig u ahayd sidoo kale si taa loo xaqiijiyo oo loo helo doorasho hufan oo cid walba ku kalsoonaan karto iyadana waxaa ku hareer socda oo sharci oo heshiiskaas uu dhigayay in la helo doorasho si wada jira looga qayb qaatay dadku maaragtay wada jirkooda ilaalinaysa miraha ka soo baxana ay noqdaan miro lagu wada qanacsan yahay oo dalka xasilooni gelin karta marka si taa loo gaaro waxaa loo baahan yahay qodobo dhowr ah oo laga hadlo maadaama muddaxileedkii dowladda federaalka ah uu dhammaaday baarlamaankiina uu ka ekaa 26 December madaxweynihiina uu ka ekaa 7 February muddadii ka dambeysana ay dhasheen falal abuuri kara kalsooni darro marka waxaan u baahanay in laga hadlo qodobadaas ku xeeran sida loo heli lahaa doorasho hufan oo dadka Soomaaliyeed qanaaco ay ka heli karaan intaasaa meelaha ugu muhiimsan oo doodu ay ka taagneed sida jadwalka loo sameyn lahaa ajandaha loo sameyn lahaa ayaa ugu muhiimsan welina way socotaa wada tashadeedana weli way socdaan waan rajaynayaa in la isku waafaqi doono waxa dadka Soomaaliyeed danta ugu jirto wayahay waxaad codsanaysaan shirka inuu noqdo shir ballaaran loo dhan yahay xal Soomaaliyeed lagu raadiyo doorasho la isla ogol yahay dadban in lagu gaaro shirku inuu ballaaran yahay anagu ma aanan sheegin shirka dabcan dadka signatory-ga ah oo saxiixay 17 Sebtembar waa la yaqaanaa oo iyagu hala ballaariyo hala furo ma lihin laakiin hanaanka shirka u furmaayo iyo shirku farqi waa u dhaxeeyo shirarka sida loo qabto waxa weeye maalinta furitaankana marti waa lagu marti qaadaa maalinta xiritaankana marti waa lagu qaadaa dadka ay shirka khuseysana maalmaha dhexe ayay ka shiraan marka annaga waxaan ku soo kordhin mayno dadkii saxiixayaasha ahaa ee heshiiskii 17 Sebtembar saxiixay cid ha ku korodho oo hala ballaariyo ma lihin waxaan rabaa inaan taa aad u faahfaahiyo oo mararka qaarkood dadka ay dhici karto in ay laba shub ugu dhaco waxa aan mararka qaarkood codsanaynaa waxa weeye maalinta furitaanka dad Soomaaliyeed oo loo qaateen ah oo mujtamaca Soomaaliyeed saameyn ku leh inay madaxda Soomaaliyeed ay kala qayb galaan furitaanka si ay naftirkooda ugu tabiyaan bulshada Soomaaliyeed in doorashadana ay tahay doorasho xalaal ah oo jawi fiican ku dhacay dhanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ama dowladda federaalka Soomaaliya haddii intaan aad sharaxday daawadahaygana uu dhageystay fariintaada uu helay maxay idin leeyihiin dhanka dowladda Soomaaliya muxuu wallahi dhanka dowladda federaalka horta aad waxay u diidanayeen in shirka furitaankiisa ay ka soo qayb galaan gaar ahaan qayb matalaysa madaxda hadda u tartamaysa xilka oo la dhaho golaha musharaxiinta oo annagu aan ku soo koobnay labadii madaxweyne hore oo tabasho qaba in ay yimaadaan oo la dhageysto dabcan waxaad ogtahay 19 February waxaa ka dhacay Soomaaliya runtii xadgudubyo aan ku habboonayn marxaladda hadda aan marayno ma rabo tafaasiisheeda inaan galo marka inay yimaadaan oo la dhageysto waxay daawo u noqon lahayd inay noqoto kulankii ugu horreeyay oo la isku arkayo sidoo kale beesha caalamka oo Soomaalida ku dhex wareertay oo dowladda federaalku marnaba ay diiday in kulamada ay ka soo qayb galaan runtii oo aanan garan karin sababta maxaa yeelay mar haddii annaga nala shirayaan oo iyagii la shirayaan oo madax xubnihii dowladaha xubnaha ka ahaa ay la wada shirayaan oo marar hore ay lana wada shiri jireen gacan weyn ay ku leeyihiin qabsoomidda doorashooyinka oo looga baahan yahay dhaqaale iyo inay dhinaca nabadgelyada qayb ka ahaataan waxa laga hadlayana ay tahay doorasho dalka in la isla ogaado qaabka shaqadu u socon doonto annagu dhibaato ma arkaynin iyaguse sababtooda iyagaa sharaxi doona
laakiin intaasba inay shirka yimaadaan ma aysan jeclaysan waxay aad u danaynayeen shirkaas hordhaca ah oo aan annaga keliya nahay oo ciddo nala joogin oo saxaafad nala joogin waxaana aan dhammaysanno aan wada hadalno annaguna waxaan aad u dareensannayn marar badan oo horaan shirar badan soo wada galnayo haddaan keliyan isku ahaano marar badanoo waxaan isnidhaahnay waxaan ahayn oo idaacadaha laga sheegay ama qoraallo ku soo baxaya baan aragnay kalsooni darradaasna waa jirtayoo dee waxaa la yidhi waayeel caanaha hortiisaa lagu barxaa oo in soomaalidu waxa kan maadaama ay leedahay in meel fagaaro ah lagu qabto aad bay annaga muhiim noogu ahayd dalkana dantiisaa ku jirta sidaan annaga ugu dhigayno waayahay muddo 6 bilood 7 bilood ku dhow dalku dhaqaaqi la yahay siyaasad ahaan waxaad madax u tihiin bulsho Soomaaliyeed oo 15 milyan qiyaas ahaan la sheego inay ka badan yihiin way dhici kartaa tiro koob rasmi maadaama aan la haynin in 15 milyan 30 sano ku dhowaad aan aysan helin dowlad baahiyahooda ammaanka waxbarashada caafimaadka huwa la xirta aan ka helin oo waliba xuquuqaad dawli ah dastuuri ay lahaayeen aan helin in aad isku mari weysaan mudane malihi dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada inaad isku mari weysaan dareen ahaan shirka furitaankiisa ka soo qayb galaano intaan iyo kama soo qayb galayaan say ku taabanaysaa ani waxay la tahay dadka Soomaaliyeed waa sax muddo 30 sano ayaa dhibaatooyin kala duwan haysteen oo runtii aan hadda rabin inaan aad dib ugu noqdo oo dadka aysan xasuusin badan aysan ugu baahnayn inay ka gudbaan u baahan laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan xasuusinayaa maanta in ay tahay maalintii la asteyn lahaa mustaqbalka soo socda ajiyaasha marka in xaajada si sax loo la foguro oo ay marinkeeda la mariyo waxay la tahay inaysan dib ahayn waxa aan aniga qabaa in dadka Soomaaliyeed u baahan inay wada hadlaan in ay ilaaliyaan waxa ay heshiiska ku yihiin waa ku kala aragti duwanaan karaan oo aanu ma dhahayo aragtida hebel iyo aragtida fulaan baa saxsan laakiin dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isqanciyaan waxa weeye nidaamkii dawladeed way ka burburay waxa ay dhisayaan waa system dawladeed oo la rajaynayo inay sanawaad badan sii jiraan dawladuhuna waa soo mareen dadka runtii hadda waxaan muuqata in habka dawladda loo maamulayo aragti kala duwanaan xooga ay soo baxday 4 sano hadda u dambeeyay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxda ka ahaa oo waxyaabo waa hore laga soo gudbiyay dadka dib ugu celinayo arrintaas ayaa waxay keentay inay caqabadaha hadda muuqda ay dadku arki karaan inay jirto waana rajaynayaa in laga gudbi doono marka la wada hadlo marka waad ka xun tahay 30 sano dad Soomaaliyeed oo dhibaatooyinkaas sheegtay qaarkood in la xasuusiyo isla habooneen in madaxdooda maanta ay ku heshiin la ayeen shirka uu furmayo ama furmayo waxa runtii horta shirku uu furmayo ama furmayo lagu heshiin la waa furnaa oo waana furan yahay oo la wada shaqeynaya waxa lagu heshiin la waxa weeye dalka Soomaaliya xagee loo hagaa dalka Soomaaliya in la hagana hawl sahlan ma haday dadku u maleeyeen dadka Soomaaliyeed shirkan haddaan sameeyno iyo waxa ay sheegayso ka maqan yihiin si degdeg ugu ma imaanayaan dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin systemka waxa ka maqan u sahli lahaa in maanta la asteeyo shirka furidiisa furud la'aantiisu ma aha macno weyn waana furan yahay shirka actually laakiin waxa laga hadlayo waxa weeye war dalka xagee u hagnaa dalka sidee loo maamulaa dalka maxaa aasaaska dawladnimadiisa iyo sharcigiisa soo ilaalina qodobadaasna way mudan yihiin in la dul istaago haddii cid gaara ay wax ka tabanayso mana aha wax dadka Soomaaliyeed dib u keenayo waxaan qabaa wax dantooda mustaqbalka ay ku jirto inay tahay baan anigu aaminsan way hadda maxaan filan karnaa maamaha soo socda maadaama dawladda natiijada shirka ku dhawaaqday adiga iyo dhanka kalena hadda aad tilmaamteen waxaad filanayseen in wada hadallada ay sii socdaan anaga waxaan filanaynaa inay wada hadallada sii socdaan lana heshiin doona haddii ilaahay saasaan qabnaa maxaa yeelay wax dadka Soomaaliyeed kala haga oo sharci iyo dastuur jira cid ka weyn ma jirto marka waxaan rajaynayaa doodu meel kasta ha gaartay in dhabta la isugu imaan doono waxa sharciga dalka uu qabo danta maslaxadiisana ku jirto in la gaari doono aaminsanahay way doorka beesha caalamka ay ku lahayd wada hadalladii hadda socday muxuu ahaa intuu la ekaa wallahi doorka beesha caalamka dabcan shirar hore badan baa soo dhacay Samareeb 1 2 3 4 ilaa iyo September Muqdisho intaba dabcan internationalku xiriir iyo waa kula hayeen laakiin si toos ah runtii ugama kala dabqaa jirin marka laga reebo kan hadda abuurmay kan haddana waxa sababay
xilligii dowladda oo dhammaaday wuxuu keenay caqabad dowr bay ku leedahay qabsoomidda hadda shirka gogol xaarka ana dowr weyn bay ku lahayd inay isu soo jiijiido dadka kala aragtida duwan ee maaragtay dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ka midka ah marka dowrkeedu waa muuqdaa waan rajaynaynaa inuu sii muuqdo waa muhiim bay u tahay soomaaliya inay doorkooda qaato midda labaad waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego UN-ka iyo African Union-ka ma aha dal shisheeye dadka soomaaliyeed xubin bay ka tahay xubin qaramada midoobay aan ka mid nahay xubin ururka Afrika midoobay baan ka mid nahay xubin waxaan ka mid nahay dalalka carabta marka caalamkan ka tirsannahay ma nihin caalamka cid ka baxsan shaqada ay gudanayaanna waa shaqadoodii ay annaga noo hayeen cid walbana u hayeen marka waa wax maaragtay nidaamka dawliga ee caalamka u shaqeeyo weeye laakiin siyaasadda marar badan la alifaayo oo dadka lagu marahabaabinayo laga dhigaayo inay shisheeye gacantana la soo galeen arrintaas arrin jirta maaha arrin saxna maaha dadka soomaaliyeed in lagu marar habaabiyana sax maaha bulshada caalamkana ka tirsannahay dad faquuqan oo meel gaara degan maantana annaga ugu baahi badan weli twitterka ayaa loogu soo gudbiyaa fariimaha si guud bulshadana lala wadaago soomaalida oo dhanka ama safaaradda maraykanka ama u qaabilsana xogaha guud ee qaramada midoobay waxaa jira fariin oo idinku amray muqdisho inaadan ka bixi karin oo ay waajib tahay ereyga u isticmaalay ingiliishka ahayd arrintaasi maxay ka dhignay in si fiican loo aqriyaa fiican wax waajib ah ma uusan oran wuxuu yidhi inaad joogtaan intaad ka dhammaynaysaan sidaas fariintu u qoran tahay midda labaad have to buu yidhi stay in Mogadishu waxaa waajib idinku ah inaad magaalada muqdisho joogtaan waaba joognaaba inaad joogtaan hadda macno samayn mayso midda labaad ma bixi kartaan macnaheedu fiiri haddaba qorqoor baa baxay oo galmudug tagay oo soo noqday oo bixiddu macno ay samaynayso malo moogta waxaa la rabaa in reality-ga laga hadlo midda labaad caalamka oo dhan baa lala hadlaa Myanmar baa lala hadlayaa Eritrea lala hadlayaa Ethiopia lala hadlayaa Kenya lala hadlaa haddii wax ka dhaca wadamada oo dhan baa lala hadlaa America markii wax ka dhaceen xilligii Trump caalamku la hadlayo China lala hadlaa safiir ama dowlad Twitter soo saartay oo dal kale ka hadashay wax dowladnimada adduunka ku cusub maaha marka I don't know aniga meesha dadka Soomaalida qaybtooda ay laakiin diblomaasiyadda iyo marka siyaasadda la yiraahdo ereyada qaanuuniga ah ama diplomatic words-ka ah miisaan bay leeyihiin waxaan codsanaynaa ma aha waxaan soo jeedinaynaa ma aha waa inaad joogtaan oo ma bixi kartaan miisan dhaawacin intaas qabkii maamulkii iyo madaxnimadiinii aniga hadda waxyaabaha hadda dadka dhalinyarada lagu marar habaabinayo inaan hore u sii wado ma rabo dabcan qof kastoo hadla ama wax sheega wax saxsanna waa ku hadli karaa wax khaldanna waa ku hadli karaa horta qofkii wax khaldan ku hadlay isagay khusaysaa qofka ku hadlay waxba dhaawici mayso qofkay isku kalsoon iyo dalkii isku kalsoon waa lay fiiriyey iyo waa lay caayay iyo waxbaa lay yiri maanta haddii lagu hadlo dhaqankaas dhaqanka dadka gobta lagu yaqaan maaha dadka waaweyn wax lagu yaqaanana maaha qofka waxaa la rabaa hadduu qab leeyahay waxaa la rabaa inuusan dhibaato u arag qof wax yeelay ama caayay saas ila tahay ma dhabbaa in culays beesha caalamka ah uu ku saaran yahay isla markaada aadan ka bixi karin magaalada muqdisho ilaa inta waddo looga bixinayo siyaasadda la isku hayo magaalada muqdisho anaa imid waxaan u imid danta ummadda Soomaaliyeed waana u joogaa ilaa ay ka dhammaanayso cid ifartay inaan imaadana ma jirto cid aan uga tagaayo danta iyo shaqada aan leeyahayna ma jirto marka anigu meelba uma socdo waxaan u imid shaqaan ku jira shaqadeydina waa gudanaya insha Allah marka ii dhamaatana haddii stationkii iyo meeshii kale oo aan shaqada ka lahay xafiisyadeyda baa u noqonaya marka wax dhibo isdiidaya male marka taas ma filaayo wax jira inay tahay beesha caalamka wax barashar ay kugu hayso joogitaankaaga muqdisho ama jiro waya adoo mahadsan tahay tan wada hadallada haddii hadda dowladda ay ku adkaysato in sidaas ay ku burbureen oo jaha kale oo siyaasadeed ay qaadato maxaa go'aan oo adinku qaadanaysan wallahi horta dee annaga wax lagu kala tagay wax burburay weli ma aragno mana rajaynayno marka waxaan hadda oolin inaan ka sii hadlana waxa munaasab ah ma aha laakiin waxaan rajaynaynaa in wada hadalladu sii socdaan xal Soomaaliyeed la gaaro way maxaa ku jaban maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle koonfur galbeed maadaama wax problem ama dhibaato ah hanaanka doorashada iyo sida wax loo wada iyo wada hadallada hadda cabasho dhankooda aan laga heelin in si toos ah isu aragtaan adiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam waxa la isku fahmi la yahay maadaama dhinacyada hadda is haystaa sida muuqata adinka ateen
arrintaas sax maaha annaga iyo madaxweyne axmed madoobe iyo farmaajo isma hayno waxaa laga wada hadlaya waa danta qaranka soomaaliyeed iyo doorashada qaranka dad gaara waxay leeyihiin maaha state gaara wuxuu leeyahayna ma laha marka dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka ah shalaa ugu dambaysa waa wada joogno marka wax aniga hadda dhib oo aan dareemayo ma jiro oo runtii shaqadiina waa socotaa is araggiina waa soconaya xalkuna wuu imaanaya marka ani waxay la tahay waxa laga hadlayo waa sidee dalka soomaaliyeed jiha loogu yeelaa aan hadhow hurgumo ka imaan waan ku celinayaa waxa weeye sidee dalka soomaaliyeed jiha loogu yeelaa aan hadhow hurgumo ka imaan isqa qabsina ka imaan marka ani waxaan qabaa dadka soomaaliyeed inay muujiyaan dulqaad waxaa ku jira nidaamkii ay ku heshiiyeen weecad baa ku jira weecadkaasna waxaa rajeynayaa bidaar siiq bay kugu gashaa baa layidhi si aan la garanayn inay dadka u gasho turxaan bixinteedaan ku jirnaa dulqaad ha muujiyaan baan oran lahaa waxaan codsanayaa in su-aalaha si qeexan aan u helno bulshadana ay ku qancaan maadaama hadda aniga aan fursad u helay in adigoo madaxweynihii puntland ahaan kula joogo galmudug cabasho lagama hayo hirshabeelle lagama hayo koonfur galbeed lagama hayo oo saddexda madaxweyne ah mudana waa maxay waxa gaarka ah ee puntland ugu muuqda horta dee waxa aan waa sax waxa aan ka hadlayo anigu puntland baan madaxweyne ka ahay waxaan ka hadlayana waa puntland waxa ay dareemayso xaq bayna u leedahay waxa iyadu ay dareemayso inay sheegto marka annaga iyo jubbaland midkeedna waa soo wada saarnaa waana soo kala saarnaa kan aan wada saarno waa mowqif aan ka wada shaqaynay oo aragti midaysan aan ka leenahay midka ay gaarka aan usoo saarana waa aragti annagu aan leenahay kuwo kale oo aan dowladda xubnaha ka oo shanteen isla soo saarnayna waa jirtaa kuwo dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah ay soo wada saareenna waa jirtaa shaqada noocaasa marka wax dhibo anigu hadda aan u jeedo oo ka duwan ma jirto wax badan baa ka duwan mudane haddii adiga ii sheeg haddii waxay ka duwan jiraan inta waxaan ku hayaa heshiiskii shirka madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir dhuusamareeb soomaaliya augusto 19keedii 2020 ka dhacay warmurtiyada ka soo baxay oo arrimaha doorashooyinka waliba jaha u sameeyay 15 ilaa 19 soconaya natiijadaasi ka soo baxday ma aysan joogin puntland waxaa goobjoog u ahaa wadatashiga waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullaahi farmaajo oo shirka gudoominayay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay ka mid yihiin madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaariyo qoorqoor oo shirka martigeliyey madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdiwaale madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud cumar firish laakiin 17 September ka dambeeyay ka sheegaysid kaas kan maxaad uga qayb gali weysay wadada ku sheegay waxaan ku yiri mid puntland mowqif gaar ah yeelan karta iyo jubbaland mid gaar ah yeelan kara annagoo wada jirnaa mid yeelanay annagoo dowladda federaalka jirtaa wada yeelan shaqooyinka socday ka mid tahay aan kala qaad shardi ma aha kulli inaan madaxweyne kan maxaad uga maqnayd shirka kaas hadda waxaan u maleynayaa inaad dib u dhageysatay qoraaladii aan ka soo saarnay waxaan tabanaynay ayaantaas shirkaas lagu qabtay meesha la yiraahdo galmudug dabcan tabashaa jirtay oo aan uga baaqanay waana cadaynay xilligeedii laakiin waxaan u maleynayaa in laga soo gudbayo xamar la isugu yimid oo wixii aan tabanaynay in laga shaafiyey waxaan tabanaynay waxaa ka mid ah qodobadii ay soo saareen hadda og tahay waxaa looga gudbay heshiiskii 17 September marka waxay la tahay wax laga heshiiyey hadda macno sameyn waa in dib loogu noqdo way 1 iyo 2 iyo 3 ayaa loo bixiyay shirarkaasi maxay kula tahay waqti la geliyay qarasha la geliyay in madaxda Soomaalida shirarkii ugu horeeyay meel ka baxsan Muqdisho oo waliba Dhuusamareeb dowlad goboleedkii la geeyay in si fudud la isugu fahmi la yahay wax siyaabaha gaargaarka ay ugu muuqanaya waxaan rabaa inaad cajalada dib u celisid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaan anigu xilka imid iyagoo sanad iyo dheeraad aan kulmin oo runtii caqabadaas waad og tahay shirka Kismaayo ka dhacay oo ay ku dhisteen golaha iskaashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladaha oo kala taagan ayaa anigu xilka 2019 qabtay waxaa shirkaas markii ugu horeysay ay isugu yimaadeen xafladda caleema saarka madaxdii oo dhan ka soo qayb galeen waxaa kaloo og tahay bishii shanaad ee May in garow lagu qabtay shirkii kale oo ugu horeeyay
oo si official ah muddo sanad iyo ka badan ay yeeshaan kaaskin ku xigay 2009 May wuxuu ahaa July 2020 waad ogtahay dowladda federaalka ah qorshaheedu ma ahayn inay dowladaha xubnaha ka iyo dowladda federaalka wada shaqayn yeeshaan bal qorshaheedu wuxuu ahaa in dowladaha xubnaha ka ah dowlad walba gaarkeeda loo hayo nidaamka federalismka la dhaawaco habka dowladnimadu oo ekaato dowlad muqdisho kaliya ka talisa oo aan lahayn laba dowladood iyo laba heer oo kala qaybsan arrintaas arrin mugdi ku jira ma aha marka arrimahaas waxay sababayeen maadaama laga soo doogay dowladda federaalka xilligeeda soo dhamaanayay waxay aqbashay in la wada hadlo waliba waxay aqbashay markaan annagu isugu nimid shirki koow waxa isugu yimid dowladaha xubnaha kaliya kaligood kii dambe ayay kala soo qayb gashay intii dambana waxaa socday dadaalkaas marka laba aragtiyood si isu diidan ayaa dalka ka jira waxa dadku inay fahmaan u baahan weeye dad ku taagan sharcigii dastuurka iyo dowladuhu ay samaysteen oo ah nidaamkaas federaalka oo labada heer oo kala qaybsan iyo dowladda federaalka ah madaxda hadda joogta oo rabta inay weeciso heshiisyadaas iyo waxyaabihii dowgeed ahayd inay marto marka khilaaf uu jira oo lama inkirayo laakiin khilaafku ma aha shirki waa furmaya ma furmin iyo maane khilaaf cumqiya jira oo ku saabsan hanaanka dowladda Soomaaliya ee u dhisminayd waana xaqiiqo jirta laakiin waxaan rajaynayaa sharciga in loo soo noqon doono oo xal laga gaaro khilaafkaas cumqiga ah maxaad ula jeedaa muxuu yahay aragtida dowladnimo sida Soomaaliya dowladda federaalka siday u maamulayso muxuu yahay roolka dowladda federaalka oo laba hadda kan jira waa cusub yahay markuu xilkiisu dhamaado roolkiisu muxuu noqonayaa ama sidoo u shaqeynaa maxay noqonaysaa hadda isku haynaa laakiin intii ku horeysay khilaafka la isku hayay waxa weeye dowladdan waxay xilka la wareegtay iyadoo qodobo muhiim ah oo dalku u dhiman yahay dabcan waxaad ogtahay 2012 ayaa dalka waxa laga saaray waxa la yiraahdo ku meel gaar waxa dastuurka ku meel gaarka ah beejiskiisa u dambeeyay ku qoran howlo la rabo dowladda Soomaaliya inay qabato oo ugu muhiimsan tahay in dastuurka la dhameystiro oo ugu muhiimsan tahay nidaamka federaalka dalka qaadanaya in la qeexo oo ugu muhiimsan tahay waxa la yiraahdo physical federalismka in la qeexo oo ugu muhiimsan tahay khayraadka sida loo qaybsanayo in la keeno oo ugu muhiimsan tahay amniga dalka iyo ciidanka sida uu noqonayo oo ah meesha ubuucda u ah dalkan kalsoonidiisa dhisi karta qodobadaas nidaamka federaalkana la hirgeliyo dowladda xasan sheekh maxamuud waxa ay ku guuleysatay in deegaanadii Soomaaliya oo dhan maamul laga dhiso oo marka laga reebo Somaliland oo arinteedu gaar tahay waxa xilligaas dowlad shuruudaha buuxisay ka jirta Puntland kaliya xasan sheekh maxamuud wadanku wuxuu ka tagay iyadoo Jubbaland jirto iyadoo Koonfur Galbeed jirto iyadoo Hirshabeelle jirto iyadoo Galmudug jirto dowladdan waxa laga reebay marka maadaama shaqadaas loo soo qabtay shaqooyinka ugu muhiimsanaa waxay ahayd in dastuurkii la dhameystiro in nidaamkii hore looga soo shaqeeyay ee la yiraahdo security architecture-ka ay hore u dhaqaajiso in nidaamka wax qaybsiga iyo nidaamka cadaaladda dalka iyo dalku sidoo u shaqeyn lahaa physical federalism ay ka shaqeyso intiiba intay xag iska dhigtay bay tiri uma baahni shaqo kale qabanaysa waxa maanta soo gaarsiiyay khilaafka halkaasna waa shaqadaas oo dalkan ay election gaarsiiso qof iyo cod ah wadadii loogu talagalay qof iyo cod ma aysan qaadin amnigii loogu talagalay kama shaqeynin maanta ayay waxay keentay in maaragtay awrtii ay dabada iyo afka isugu xirto saa loo meereysanayo waana xaqiiqo jirta oo dadka Soomaaliyeed in ogaadaan ay muhiim tahay arrintaasna waxay u baahan tahay in la furdaamiyo marka maxaa yeelay wax ka kharaar baan soo marnay oo dhibaatooyin marka aan waan aaminsanahay in xal loo heli doono cid kastaba ha u xallayso heshiiskan waxaan rabaa arrimaha doorashooyinka inaan uga gudubno mowduuc kale oo barnaamijka marti aan ugu talagalnay inaan soo qaadano waxa u dambeeyay heshiiska 17 Sebtembar heshiiskan inuu dhaqan galo si kooban mudan madaxweyne maxaa hortaagan heshiiskan inuu dhaqan galo waxa ugu weyn oo hortaagan waxa weeye in laga wada hadlo sidii loo dhaqan gelin lahaa oo caqabado ay ka jiraan lagana heshiiyo marka ma rabo inaan ka hor dhaco heshiiska si meesha looga hadlayo goobtiisa bal 1 iyo 2 iyo 3 uga faa'iideynaya daawadayaasheeda caqabadahan in shirkan ka soo qayb galayaasha iyo dadka aad tilmaantaan ahayn 3 qodob inooga sheeg waxaan ku koobi lahaa waxa loo baahan yahay doorasho lagu qanacsan yahay oo dalka xasilooni gaarsiisa in laga wada shaqeeyo
caqabadaha hortaagan ugu habboon waxa weeye in la qeexo sida looga qaybgalayo roolka amniga uu yeelan doono iyo daadihiinta mashruucan markii uu dhammaaday xilligii muddaxileedka madaxweynuhu meesha ay ka soo gelayso in la qeexo aad bay u habboon tahay si loo helo doorasho lagu kalsoonaan karo oo cid walbana ay ku qanci doonto una siman yihiin dadka tartamayaasha haddii la ka waran haddii hawshii doorashooyinka loo dhiibo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ma ku qancaysaana hore ma u soconaysaa wixii aan ka qabo ma rabo hadda inaan TV uga hadlo waxaan rabaa shirarka dhexdeeda inaan uga hadlo sida la rabo in loo maareeyo laakiin waxa la rabo in la gaaro ayaan kugu qeexay marka waan rajaynayaa inay wada hadallada soo socota ay ka soo bixi doonaan sida ugu habboon oo suuragalka annaga waxaa dhici karta inaan aqbalno waxaan suuragal ahayn laakiin duruuftu ka badan weyda maadaama madaxweynaha eedo fara badan aad u jeediseen tan kale 8 Febraayo kadibna sharciyadiisa aad ku haysataan ama aad tidhaahdeen waqtigii ayaa ka dhacay aragtida ah in ra-iisul wasaaraha loo dhiibo ma soo dhaweynaysaan roolka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya mudane waxaan aad uga cudur daaranayaa wax aan laga heshin in anigu sii sheego waxaas ma soo dhaweynaysaa waxa la dhahaa wixii go'aan soo baxa haddii go'aankaas soo baxo wixii aan ka oran lahaa baan sameynaa laakiin go'aan aan hadda oolin waa dhaweeyey ima dhaweynayo hadda macna ma abuuri doontaan u malaynaya waraysiga waxaan ku qaadaynaa xafiiska hadda muqdisho aad ka degan tahay oo ku yaala area ammaankeeda aad loo sugo loo ilaaliyay barigii aad imaanaysana waxaad tidhi amniga muqdisho la iskuma halayn karo waliba adoo xukuumadda ku dhaliilayay Febraayo iyo dhacdadii dhacday seebaad rabtaa in amniga doorashada loo wajaho cidda aad doonaysa inay gacanta ku qabato oo aad ku kalsoon tihiin waxaan rabaa inaan uga hadlo qodobadaas miiska wada hadallada waa sax kalsooni darra abuurantay 19 Febraayo wixii ka dambeeyay tan Febraayo u imaan doona ammaanka xanaanka doorashada seebaad u rabtaa mudane madaxweyne hadda mashirkii baan ku jirnaa horta mise waraysi baan sameynaa shirka wixii aan uga hadli lahayn inaan halka uga hadlo aniga ruuxadeeda munaasab ima aha marka waxaan rajaynayaa inaan shirka uga hadlo iyo cidda ay khusayso barnaamijka haddaan uga hadalna keliya dhacdooyinkii shalay oo uusan macno ku soo kordhin siyaasadda Soomaaliya qorshaha socda anigana macno ii sameyn maayo mudane madaxweyne marka aan sameyno wixii daras ah ama qorshe dowladeed ah qaran baad wakiil ka tahay Soomaaliya anna suxufigiisa ilaahay iga dhigay isoo ka hor fariisay u faa'iiday bulshada sidee baad rabtaan in amniga doorashada iyo siyaasadda iyo cidda ay tahay in loo dhiibo intaas kaliya loo waxaan rabaa suxufi adoo mahadsan inaan kuu sheego cidda aad wareysanaysa inay mas-uul tahay anigu muxallal siyaasi ma ahi oo darasyana bixiya hadalkaygu waa hadal ku qotomi doona go'aano marka go'aanadii aan ka qaadan lahaa arrimahaas inaan miiskan kuga falanqeeyo diyaar uma ahi arrimaha doorashooyinka inaan halkaa u gudubno maxaad ka qabtaa maadaama meelaha qaar aad ka cudurdaartay ka gaabsatay anigana waxaan doonayaa inaan barnaamijka hore usii wado mudane madaxweyne waxaan rabaa qaybtan daawadayaal waxaad la socotaan barnaamijka awoodda shanaad ee dalsan TV idinkaga imaanaya toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa arrimaha doorashooyinka iyo sida dalkan marxaladda u marayo looga gudbin doono madaxweynaha Puntland Saciid Dani ayaana inala jooga Puntland waxaa ka haysta culeysaad daakhili ah kacdona gaarsiisan arrimahaasi maxaad wax uga qaban weysa mudane Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier